Ra-iisul Wasaaraha Xukuumadda Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Roble ayaa ka qayb galay munaasabad lagu soo gabagabeynayay doorashada kuraasta gobollada Waqooyi ayaa wuxuu dhanka kale fariin adag u diray maamul goboleedyada dalka ka jira. Roble ayaa dowlad goboleedyada dalka ku booriyay inay doorashada xildhibaan degdeg u soo gabagabeeyaan si waqti looga faa'iideysto loona fuliyo heshiiskii Muqdisho. Sidoo kale wuxuu Ra-iisul Wasaare Roble u hambalyeeyay xildhibaanadii gobollada Waqooyi ee lagu doortay magaalada Muqdisho isaga oo bogaadiyay guddiga Somaliland ee qabtay doorashada. Waa kan Ra-iisul Wasaare Roble oo ka waramaya sida u dhacday doorashada gobollada Waqooyi, fariin adagna u diray maamul goboleedyada. runtii maanta aniga ka Ra-iisul Wasaare ahaan ka shakhsi ahaan waxay ii tahay farxad gaar ah maadaama ay tahay maalintii ugu dambeysay ee la soo gabagabeeyo kuraastii golaha shacabka ee gobollada Waqooyi Somaliland. waxaana maanta inoo soo gabagaboobay oo qofkii ugu dambeeyay xildhibaankii ugu dambeeyay hadda lagu dooranayaa ay noqonaysaa 11 aqalka sare ahaa iyo golaha shacabka oo ahaa 46 isku darkoodu uu yahay 57. marka hambalyaan leeyahay guddiga siid ee doorashooyinka Somaliland. waxaan rabaa halkan inaan uga mahad celiyo dhammaan ciidanka booliiska Soomaaliyeed oo ugu horeeya taliyahooda Xijaar, taliye ku-xigeenka Kaniif, iyo waxaan si gaar ah rabaa inaan uga mahad celiyo taliyaha Cabdifataax oo runtii dadaal badan iyo juhdi badan geliyay. waxaana sidoo kale rabaa inaan u mahad celiyo dhammaan ciidanka booliiska Soomaaliyeed ee hawsha ka qayb qaatay iyo akademiyadan booliiska ee sareeyo guuto Generaal Kaahiye. shacabka Soomaaliyeedna waxaan leeyahay maanta waa maalin farxadeed oo guul ah oo noo sheegaysa inay noo soo dhammaatay doorashadii golaha shacabka ee Somaliland. waxaan rabaa halkan inaan baaq uga diro saaxiibaday walaalahay dowlad goboleedyada, madaxda dowlad goboleedyada, shanta dowlad goboleed. waxaan leeyahay waqtigu uu nahayaa maanta waa taariikhdu waa 21. waxaan noo haray 4 cisho. saan ballan qaadnay waa inaan 4 cisho ku dhammaynaa. waan garan karaa, laakiin haddaan dadaalno waa samayn karnaa. marka kubadda dhinacayna jirtaa soo dhammeeya sida ugu dhaqsiyaha badan. waajibna saaran waaye, waana waajib shacabka Soomaaliyeed naga saaran. cid looga gambanayo mas-uuliyaddaasna ma jirto. soo gabagabeeya sida ugu dhaqsiyaha badan si shacabka Soomaaliyeed ay u helaan baarlamaan, speaker ama gudoomiye baarlamaan, kadibna loo doorto madaxweynihii. shacabka Soomaaliyeedna arrintaas aad ayay ugu ooman yihiin. mar labaad iyo mar saddexaad waxaan idin leeyahay waa mahadsantihiin guddiga Somaliland ee siid, guddiga fiid iyo guddiga khilaafaadka. aad ayaa u mahadsantihiin. dadka codka bixinayo waa mahadsantihiin idinkana aad iyo aad. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Markaan ugu daawanaysiin oo wanaag qoyska aad u barateen wararka ugu dambeeyay fadlan daan subscribe dheh maalintana ku wacnaato.